ma aaminsan tahay in aad kordhini karto tayada ogxaantaada haddii aad qof dumar waxaa jirto qaacido ay dumarka badi ay aaminsan yihiin qaacidadanina waxaa lagu daliishaa in ay maaragtay aad kordhini karin haddii aad qof dumar aad tahay oo da-deedii aad mise da-daadii aad kor ka martay 35 sano mise geneticskaaga chromosomekaaga haddii waxay ka qaldanyiin in aad ogxaantaadii aad kobcini karin tani waa qalad waxani ama qaacidadani waa qaacido qalad ah ogxaantaadii waqti walba aad kordhini kartaa muuqaalkani waxaan idinkugu soo gudbini doonaa waxyaalaha lagaga baahan yahay ama cunto ahaan ama adiga jir ahaan waxyaalaha lagaga baahan yahay oo inaad samaysid lagaa rabo oo maaragtay oo dabiiciga ah oo ogxaantaadii aad ku kordhini kartid aad ku kobcini kartid ama tayada ogxaantaadii aad ku kobcini kartid quality-ga ogxaan ahaan aad ku kobcini kartid waa haddaba wax yar aan idinkaga sheego waxa uu jirkaaga ama shaqada uu jirkaaga uu qabto jirkaaga asaga ayaa regeneration wax la yiraahdo isku sameeya sida unugyada ama cellska jirkaaga haddii ay hoos u dhacaan ama ay qaldamaan jirkaaga wuxuu u sameynayaa regeneration marka unugyada jirkaaga maxay ka qabtaan shayga koowaad waxaa waa unugyada cellskaaga waxa ay yihiin building blocks oo jirkaaga ah building blocks waxaa tiirka uu jirkaaga uu ku taagan yahay ama pillarka ama tiirka uu jirkaaga uu ku taagan yahay waa unugyada ama cellskani marka waa maxay marka shaqadoodii cellskani waxa ay kala gudbiyaan ama ay helaan information ay ka helaan ama signal ay transmit gareeyaan jirkaaga inta kale oo jirkaaga ayay u signal ama information ay u gudbiyaan sidoo kale unugyadani jirkaaga maxay ka qabtaan marka waxa ay ka qabtaan maaragtay waxa ay ogaadaan xalka oxygenka jirkaaga awoodda jirkaaga ayaga ayaa maamulo sidoo kale waxa ay maamulaan nafaqada ama nutrientska jirkaaga ayay maamulaan marka haddii ay dhacdo marka in ay unugyadaada ama cellskaaga ay dhibaato ay gaarto oo ay maaragtay awoodoodii ay yaraato oo nafaqadii ay yaraato jirkaaga wuxuu u galayaa waxa loo yaqaano oxidative stresska marka oxidative stresska waa maxay marka oxidative stresska waxa waaye marxalad uu jirkaaga uu galayo markii ay ku yaraadaan antioxidant levelka wax loo yaqaano ama antioxidantska markii ay jirkaaga uu ku yaraadaan jirkaaga wuxuu u galayaa oxidative stress wax loo yaqaano aan isweydiino marka antioxidantskan waa maxay antioxidantskan waa macdan uu jirkaaga uu soo saaro oo naturally sida maaragtay ilaahayba uu jirkaaga u hagaajiyay in ay la dagaalamaan waxa loo yaqaano free radicalska su-aasha kala soo bixaysa waxaa waaye waa maxay marka free radical oxidative stress waan kasoo hadlay antioxidantska waa idin sheegay free radicalska waa maxay marka free radicalska sidoo kale waa molecules waa macdan ama molecule waayo ama atoms waayo oo jirkaaga dhanka oxygenka la dagaaltamo ama dhibaato u keeni kara oo ku horseedi kara in ay ku keenaan antioxidant levelkaadii ay yareeyaan sidoo kale ay ku keenaan oxidative stresska marka haddii antioxidantkaaga ay block ay noqdaan oxidative stress baa kugu dhacayo oxidative stress hadduu kugu dhaco waxa uu ku horseedayaa jirkaaga inuu barar uu ku siyaado unugyadaada ay maaragtay dhaawac uu gaarmo iyo intaasi inka badan su-aasha in laisweydiiyo mudan waxaa waaye waa maxay antioxidantskan oo kaa reebayo in ay oxidative stress uu kugu dhacin haddii jirkaada ay ku yaraadaanna oo oxidative stress kugu dhacayo oxidative stress hadduu kugu dhacano jirkaaga uu bararku uu ku bato oo maaragtay ogxaantaadii tayadeedii ay yaraato oxidative stress waa waxyaalaha u horseedo in ay ogxaantaada haddii qof dumar a tahay inay ogxaantaadii ay yaraato haddii ogxaantaadii tayadeed ay yaraato adiga dumar ahaan gabar ahaan uur ma qaadi kartid maadaama ogxaantaadii ayaa daciif ah haddii ogxaantaadii daciif ay tahayna oo kuu keenayo oxidative stresskana uu keeni hayo sababtuu ku imaadin ay tahay antioxidantska ay yaraad jirkaadii ku yaraad
waa in aad maaragtay marxaladaasi aad waxaad ka qabatid. marka waa maxay marka antioxidantska oo kaa celinaya oxidative stresska waxaa kamid ah fitamiinada kala duwan oo vitamin A-ga uu kamid yahay, vitamin C-ga uu kamid yahay, iyo vitamin E-ga uu kamid yahay, iyo vitamiino kale oo intaasi oo ka badan ay kamid yihiin. sidoo kale antioxidantskan waxaa kaloo kamid ah seleniumka waxa loo yaqaano oo maaragtay jirkaaga bararka iyo waxyaalo badan la dagaaltamo oo dhanka ogxaantana ku shaqeeyo oo ogxaanta dhismadeedna ka qayb qaato. sheyga kale waxaa waaye zinkiga sidoo kale asagana wuxuu ka qayb qaataa ogxaanta dhismadeeda iyo maaragtay jirkaaga dhismadiisa iyo unugyada dhismadood buu ka qayb qaataa. marka shaqadani oo idal unugyadaba aaba ka ah. haddii marka unugyadii ay oxidative stress uu ku dhaco, jirkaaga waxa uu galayaa xaalad oo oxidative stresska oo antioxidant levelka ay ku yirihiin jirkaaga. antioxidant levelka marka sidee lagu ogaan karaa jirkaaga in ay normal ay yihiin oo meesha laga rabay ay taagan yihiin iyo in ay maaragtay ay qaldan yihiin oo hoos ay jiraan. antioxidant levelka waxaa lagu ogaan karaa in jirkaaga laga baaro oo dhiigaaga la qaado oo la baaro. taasi waa arrinta kuwaad lagu ogaan karo antioxidant levelka. marka waxaa isweydiis mudan marka haddii oxidative stresska kugu dhacay oo antioxidant levelkii aan idiin soo sheegay aada ogaateen, wax yar waxaan rabaa marka in aan ka hadlo waxa ay tahay ogxaanta ama ovumka wax loo yaqaano ama ukunta. waa maxay ukunta? sidaad u og tahay waa sheyga unugyada midda ugu weyn ama selskaada kuwa ugu weyn ayay kamid tahay. waa selskaada kuwa ugu weyn waayo ogxaanta ama unugyadaada kuwa ugu weyn ayay kamid tahay. marka ogxaantani midda loo yaqaano mid waxaa jirta loo yaqaano immature ovumka ama immature egga. waa maxay marka immature eggan? waa maxay immature eggan? waxaa waaye ogxaanta midda aan qaangaarin. ogxaantani oo aan qaangaarin haddii ay la kulanto shahwada dhanka ninka ragga ka timid waxa ay noqonaysaa ogxaan mature ah, kadib fertilized bay noqonaysaa, uur bay isu bedelaysaa. ogxaanta marka waxaa laga helaa gudaheeda ama unugyadani ogxaanta ku dhex jiro waxaa jiro DNA-ga, waxaa kaloo ku jiro genetic materialka, iyo waxaa ku heerarsan waxa loo yaqaano yogsagaga oo nafaqeynayo unugyadaasi ama u gudagalna marka haddadani waxyaalaha lagaga baahan yahay oo aad ku dhisi kartid tayada ogxaantaada ama aad ku kordhini kartid, aad ku kobcini kartid ogxaantaada tayadeeda. sheyga kuwaad waxaa waaye in aad qaadatid waxa loo yaqaano fertility dietka. fertility dietka maxaa kamid ah marka? waa in aad isticmaashid ama aad qaadatid vegiska ama cagaarka wax loo yaqaano vegetables wax loo yaqaano. cagaarkani marka maxaa kamid ah ama maxaa uu ka kooban yahay? cagaarkani waxaa kamid ah spinachka waa in aad badsatid. spinachkana waa in aad dabka aad ku daayinin, waa in uu 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo uu dabka saarno. spinachka marka maxaad ka helaysaa? spinachka waxaad ka heli kartaa zinkaga ayaad ka heli kartaa. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa digirta waxaad ka helaysaa ironka ama folic acidka baad ka helaysaa. sidoo kale digirtu waa protein oo jirkaaga u fiican. folic acidka waa qayb kamid ah antioxidantska, waa qayb kamid ah macdanta jirkaaga u baahan yahay oo dhisaya ogxaan. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa ama aad hilib ahaan aad u isticmaali kartaa malayga gaar ahaan salmonka iyo tunerka iyo shellfishka kuwa loo yaqaano. kuwani waxa ay ku ziyaadinayaan, waxaa laga helaa omega 3ga iyo seleniumka iyo zinkiga ayaa laga helaa kuwani. waxaa kale aad isticmaali kartaa flaxseedka ama xulbada. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa liverka bearka waxa loo yaqaano oo maaragtay aad karsani kartaa. waxaa laga helaa ironka, folicka iyo intaas in ka badan. waxaa kale aad isticmaali kartaa waxyaalaha ay ku badan yihiin sida looska, waxaa laga helaa asagana
omega 3ga seleniumka sidoo kale waad ka heli kartaa, zinkiga waad ka heli kartaa, iyo intaas iyo inka badan. shayga labaad lagaaga baahan yahay waxaa waaye exercise-kaaga. waa in uu ama jimicsigaaga waa inuu noqdo jimicsi dheelitiran oo waqti kooban ah. waa arrinta labaad aad ku kobcini kartid tayada ogxaantaada. exercise-ka ama jimicsiga waqtiga aad sameynaysid waa inuu ahaado waqti kooban. waa in uu noqonin jimicsi oo waqti badan kaa qaadanayo, oo like 2 saacadood 3 saacadood aad ku jiraysid, 4 saacadood aad ku jiraysid. taasi isuma daneynaysid, ogxaantaada tayadeeda baatiriyadii haysaa waad yareynaysaa. arrinta kale lagaaga baahan yahay ayaa ah in aad nasashada aad badisid. recovery periodkaaga waqtigaad jimicsiga kasoo baxdidna aad badisid, aad maaragtay nasasho badan. labada arrimood ugu dambeysa oo lagaaga baahan yahay ayaa ah in aad maskaxiyan buuqa aad iska ilaalisid. stresska waa waxyaalaha ogxaantaada tayadeed hoos u dhiga. haddii aad qof stress aad tahay, jirkaaga wuxuu soo daynayaa stress hormones. stress hormoneskan waxa ay kugu darayaan in uu ogxaantaadii ay kori wayso oo maaragtay waxyaalooyin badan ay kugu imaadaan. sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay in aad qaadatid kaniimaha ama supplementska loo yaqaano oo ay ka kooban yihiin zinkiga, vitamin D-ga, vitamin C-ga, vitamin A-ga, vitamin E-ga, seleniumka, maaragtay DHE2. waxyaalo badan ay ka kooban yihiin waa inaad isticmaashid. supplementyaashan kaniimadani ama capsuleyaashan ayagoo waxaa la gadaa oo hal ah oo waxaan iyo intaas inka badan ay ku jiraan. marka arrinta waa dhankiina, mas-uuliyadda waa dhankiina, sababtoo ah aniga tayda waxaa waaye wacyigelinta. mida kale ha ka iloobina channelka subscribe-ka, like iyo shareka, maadaama barnaamijyaal badan oo in kuwani ka badan ay soo socdaan. fadlan waxaa idinka codsanaya in channelka aad ka iloobin subscribe, like, shareka. waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanidka barnaamijka. waxaan idin rajaynayaa nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.